wacan oo wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan meel walba waad joogtaan waad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada tixanaha murtida iyo maahmaahyada tixanaha murtida iyo maahmaahyada waxaynu ku eegi doonnaa sheeko murtiyeed waabaa waxaa la yidhi 4 hablood ayaa beri ku guurseegay degmadoodii waxay gayaankooda sugaanba habeenkii dambe ayay hoos iskula faqeen waxaynu dhoornaaba waa gumaysnimo oo aan ka hayrinno oo aan ka hulayna meesha ayay talo ku goosteen dhegaystayaal heerin ama hayran waxaa la yidhaahdaa gabdho koox ah oo gurdoon ah oo reerkoodii ka tegay oo meel kale guur u doontay haddii dayixii dhacay habeenkii ayay muskii soo jeexeen mid walibane waxay lahayd ayay gosha soo gashatay 2 caana maal haddii jidkii ku soo dhignaayeen ayay habeenkii dambe goor fiid ahi reer u soo hoydeen inta oodii laga rogay ayaa buulkii gabdhaha gogol loogu fidiyey 3 jir ah oo macal iyo barur dhaqaaqila ayaa loo loogay intii hilibku karsamayane karuur geel ah oo hamuunta ka jabshane waa loo geeyey gabar inan ah oo reerka la joogtane waxay ugu dul sheekaysay karuurkii caanaha ahaa haddii hablihii intaa la isgula qoofay ayaa odagii reerka wiilkiisii oo gugaa 20 sano jirsaday ayuu gooniyaha ugu yeeray wuxuu yidhi aabe xilligaad ku guursan lahayd waa joogtaa gabdhuhuna waa hayrin oo way inoo soo galeen ee waa inaad mid kala hadhaa waayaha aabe ayuu yidhi wiilkii balse tan aan kala baxayo ma dhaban baan ku doortaa ilaa waxba kama naqaanee odagii baa intuu shaarubta miiqay ugu jawaabay maya si kalaynu ku baaraynaa waynu xujaynaynaa hilbahu kulul baynu u geynaynaa inaguna waa u kurgalaynaa hablihii heerinka ahaa waxay jiriqsadaanba kolkii dambe ayaa hilbihii oo karaya xeero loogu soo shubay oo loo keenay ilaan waa meel wax lagu wadee gabadhii reerkane waa looga yeeray haddii ay hablihii hilibkii ku cidloobeen ayaa tii ugu horraysay ku soo haaday oo xeeradii hab ku tidhi gacantay gelisaba kor bay ula booday iyadoo ku hirahiraysa kama naalee kulula tii xigtay ayaa soo xilatay oo ku tiraabtay naa koran weynay kala goo tii 3aad oo hanqalka la soo booday ayaa ku gurxantay naaha qaboobee qabo weyn ku rid tii 4aad oo raarta ugu xigtay oo halkeedii ka soo ruqaansan ayaa tiri iyadoo afka gacanta ku haysa naaha kafafee kor saar odagii iyo wiilkiisii oo buulkii ducdiisii bari dibadda ka taagan ayaa is-eegay waa tan 4aad ee codkeeda xabeebtu leeyahay tii aad kala bixi lahayd ee tilmaamso ayuu odagii wiilkiisii kula xanshaashaqay dhegaystayaal inkastoo la yidhi ayaan ley aqal ma weedo haddana ceebta weyn ee qofka sharaftiisa iyo heybaddiisa dhaawici karto waa cirweynida maba ku sii jiraan dumarka waa tan ay yidhaahdaan soomaalidu rag caluushiila cayaar iyo ciilkamabaxa u daran dumarna cirteed bogoto iyo casar seexata u daran odayaasha Soomaaliyeed waxa ay ku duceystaan ilaahayuu cirweynin lama huraayee habarta hanaga gelin qofka dooniga ahi Soomaalidu waxay tiraahdaa hamuun gorgor ama hamuun goranyo ayuu qabaa ruuxaasi dhegaystayaal tixanaha murtida iyo maahmaahyadane maanta halka haynoo joogeen ta intaa ku kulmi doonno qayb kale haweenkii ragga waa ku caabinay hababa